وترتنا قونات كي أفراد الأحمر أرضية دوسية هوسة دحية إليس جارحنا فصل السديدات كاسو صدح مع الموضوع حريرة كسر حرمها دوسية سراء إليس إيا حرون تضلد مصنو ee magaalada Hargeysa tartankan oo ka duwan kii sanadihii hore marka la eegay qaabka loo agaasimay oo ahaa mid ku saleysan habka tiknoolajiyada ayaa waxa ka qayb galay dugsiyada Ilays ee kala aw aadan calaamada jigjigeeya iyo New Hargeysa hadaba 3 maalmood oo aqoon lagu hirdamayay waxa ugu dambeyn ku guuleystay kaalinta koobaad dugsiga hoose dhexe Ilays ee jigjigeeya halka kaalinta labaadna uu galay dugsiga hoose dhexe Ilays ee New Hargeysa gudoomiyaha horumarinta waxbarashada dalada Masno ahna qaban qaabiyaha tartankani Mustafa Maxamuud Awil ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka tartankani uu qabsoomay waa tartan aqooneedkii afraad ee dugsiyada hoose dhexe ee Ilays ay u qabatay hay'adda Masno ee iskuulada maamusha waa kii afraad maanta 2015 noo soo bilaabmay 16 17 18 maanta joogno waa doorkii afraad runtii tartanku wuxuu soo maray maraaxil fara badan ilaa iyo maanta uu soo gaaray halka aad arkaysaan ee uu la jaan qaaday tiknoolajiyada ee aynu ku qabanay inaynu computer ardaydu ay halka hortooda waxa weeye ka daawadaan su'aashii marka loo kili gareeyana ay u soo baxeen tii saxda ahayd tii qaladka ahaydba runtii marxaladaas ayuu tartanku maray waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu ahdaaftii aynu tartanka ka lahayn ay noo hirgaleen ahdaaftaas oo ahayd iyo ujeedooyinka aynu tartanka ka lahayn inay ardaydeena maanta halka fadhida ee New Hargeysa iyo waxa weeye jigjigeeyar calaamadaha oo shalay tabaxay aw aadan oo daraad baxay iyo dugsiyadeena sare aynu booqanay intuba inay isbartaan inay yihiin bahweynta Ilays oo ay wadaagaan magaca Ilays waxa weeye ay meel ka soo wada jeedaan isku midna yihiin taasina way noo hirgashay mahad Ilaahay sidoo kale waxa goobtaasi ka hadlay maamulayaasha labada dugsiga galay kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad Axmed Cabdullaahi Ciise oo ah maamulaha dugsiga Ilays jigjigeeyar ee kaalinta koobaad galay iyo Cabdullaahi Maxamed Ibrahim Beershiya oo maamula dugsiga Ilays New Hargeysa ee galay kaalinta labaad gudoomiyaha guddiga waxbarashada dalada Masno Maxamed Ibrahim Shamsuddin ayaa bogaadiyay tartan aqooneedkaasi dhex maray ardayda dugsiyada Ilays marka la tartamo cid u baabadisa taamicinaheeguna ma aha cid laga badiyay aqoonteeda hooseysa laakiin waxa weeyaan uu nasiibku sidoo u dhaco ay had iyo jeer ku xidhanta bini'aadamkuna ma aha cajalad wax lagu duubay oo wax walba marka dusha kaga jawaabi kara su'aalu garanayay ayuu farkanaxa si kale u sheegi karaa hadal uu si wanaagsan u dhigis lahaa ayuu carada si kale u oran karaa waxa soo dhamay waxay keenaan marka in marka la kala sareeyo tartanka weyn uu dhimay kan ujeedadii tartankeena uu ka hayn wax akhristaan baad tiina wayda ka muuqata runtii wax muuqaal bad wax idin ka muuqata dadaalka sameeyay meesha halka la isla gaaray ayaa muujinaysa in aad oo soo xaradeen laakiin tartankii weyn uu dambeeya aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya labada arday iskuulba competition baan ku soo jiray tartan baan ku soo jiray orod baan ku soo jiray uu soo gabagabooday si wanaagsan oo sharaf leh uu ku soo gabagabooday oo labada dugsiba ay muujiyeen akhlaaq heer sare iyo aqoon heer sare ay muujiyeen labadooda ka muuqata sida la sheegay maanta waa labada dugsiba way ku guuleysteen dabcan su'aal waliba la isla gaaray halkii ugu dambeysay iyo dugsiga jigjigeeyar ku qaaday taana waxa weeyaan dhamaanteen baan u hanaynana inagoo qadarinana munaafiska labaad oo si adag u tartamay una hambalyeynana macallimiinta aqoonta ka soo dhistay labada dugsiba iyo maamulka garab taagnaa ee ku dabagalay la socday waxbarashada ugu dambeeyna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda waxbarashada gaarka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Muuse Maxamed Shide waxaan aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka munaasabad noocan ah oo aan oran karo waa tii koowaad min noocaha maxaa yeelay markuu tartanku ku saleysan yahay electronic ama computer ama tiknoolajiyad waxa weeyaa waa la jaan qaadis waxa caalamka ka dhacaya tiknoolajiyada dugsiyaduna waxay ka jawaabaan mar walba oo loo sameystay waa meelaha la jaan qaada tiknoolajiyada cusub iyo isbedelka ku imanaya wadanka iyo isbedelka siyaasadeed taa markaa waxa leeyahay maanta khad gaar ah oo cusub ayay jeexday mu'assasatu Masno ama marka la isku soo geeyo dugsiyada Ilays tartan aqooneedkani dhex maray dugsiyada Ilays ayaa ah mid sanadla waxaana tartankani uu noqonayaa kii afraad ee la qabto Cabdi Shakuur Dayib Maxamed
Hon Cable TV, Hargeysa.